waxaan ka sheekeynayaa qiso markaan joogay Norway والدكتور موجود مسجد بان تغي مغربكي ان كلمه ku qornaa markaan salaadii aan tukanay baanin dhalinyaro oo asalkiisu Pakistani yahay sayay meesha ku dhashay oo af Norwejiga yaqaan ayaa yimid wuxuu ku yiri sheekh anigu harto waxaan waa dadkan ducaada ah fi sabiilillahi u baxay dacwada ka shaqeeyo way wuxuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu igu manaystay waxaan ku dadaalaa buu yiri Norwejiyiinta aan la hadlaayo aan diinta kala hadlaayo islaamka ugu yeeraa bil kaste ugu yaraan laba ama saddex baa yaan soo xirigeliyaa oo ilaahay sabab iga dhigaa inay islaamaan marka maanta mid baan wadaa oo hadda doonaya inuu ashhado oo islaamo waxaan rabaa inaad adigu shahaadada u qabato khayr allah ku siiyaan nadam intaan dhulkan imid inta kaliyoon wax kala mooyaadana ka faa'iideysan فهو خير لي وحكست يا خير بدن خير الله كسي جزاك الله خيرا وكابويل وويل كادير يوروب قروحدا بدن hortaydu soo fariisi wuxuu yiri Pakistaniga sheekh waxaan kaloon ka codsanayaa buu yiri anigu dacwada iyo kalimaadka aan kula hadlo baan rabaa in aan ku soo bandhigo hadda waan la hadlay hortaadan kala hadlaya hadii waxay ka khaldan yihiin isax anigu igu leeyahay moogtaa hadii waxay ka khaldan yihiin isax وهي ير صوماليا يجا ترجمة فورية دعوة يرو موجزه عجائب له توحيدك يا نبوتي يا رسالتي يا إيمانياتك يا آخرتي أو كوبانو اسكو فلان إن قفك دعوة اسكو مشغول يا إلهي وافجنا إياه وعجائب له ماشي أقول فتي يركبوا في نرويج بكل هذا يركب صوماليا أنا أنو ترجمة يا وحوليه كتب وحو كيري ما مقاش هذا الكيغا كي وحو لها ما فهمتها ما رميسنتها ورميسنها ما عد بعدين تكون قصبتي ما هي سو اديك اختيارك مره تدينا قشها تفضل يا شيخ شهادتين كاقول لك هذا ديار وي شهادتك بقول لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله شهادتك ترجمه بالنرويجي وهذا انا ugu dhuftay waa ku dhawaaqay alxamdulillah allahu akbar balaydi ninka wala mu'anaqay isagii waa farxay inaan kala tagnaan damacnay oo markii aan ducaynay wuxuu yiri sheekh arrin baa dhiman fariista yarkii baan oranay Pakistaniga fariista waa fariisan waxaan rabnaa buu yiri wiilkan hadda soo islaamay ee dhalinyarada ah inuu isagu noo duceeyo koow oo maxaa dhahay wuxuu yiri laana isagu dambigiisa oo dhan ilaahay wuu dhaafay sabxadiisu waa faaday laakiin anaga dambi baa naga buuxa marka isagu hanoo duceeyo isaga marka ka dal wallahi waa arrin wanaagsan baan waa sax quraanka ku taalaaba qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wal islam yajub ma qabla wa ba hikmad weyn marka yarkiibu wuxuu ku yiri noo duceey kii wuxuu yiri duca ma qaan أنا كو لقينايه إيجا دبا دبويل راسو كدبه اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ادخلنا سيبا دعيني نقول آمين بلنا سيبا دعيني مركز وحو يركي باكستاني وحو يري أنا فرصة ما كان دغتاو مid kasto on soo islaamiyo waa ka ducaystaa لأنه dambi male dambi mar haduu la ilahay insha Allah ducadiisa waa maqbuul